السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا دمانتين وعلي والسلامي من الباء دونك الدعالة دي سكوة جوكتان channel kan naga daawanaysaan waa Shamsa Xasan Xinna kusoo dhawaada in leeyahay mar walba iyo mar kastaba meel walba adduunka dacaladiisa ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay saacad walba idin tahay wanaagsan ya kusoo dhawaada maasha Allah tabarakallah Shams way timid maxay noo sida maxay soo wadaa mar dhow ayaa gabar abaaya ah qisadeeda ila soo qaybsatay ila soo wadaagtay waxaan iga codsatay isla hadartaan asxaabteedina usoo gudbiyo wixii fikrad ah heesaan iyo wixii ra'yi aad heesaan maxaa lahaa 10 qof hadee meel iskugu timaado 10 hadal ay ku kala hadlaan wax baa lagala dhabaxaya samaha oo muhiim ah oo waxaan ku leeyahay wax gal noqon karo oo wax lagu fahmi karo laga baxsanaya marka waxaan idin leeyahay asxaabteeda dhamaantiin dad aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad u qalbi wanaagsan aad iyo aad u fiican ayaa igu xiran alxamdulillah ma sha Allah tabarakallah waxaan rajeynayaa gabadhan abaaya ah in aad la qaybsan doontaan qiso wax walba oo fikradiina ah iyo wax walba oo ra'yigiina ah in aad la qaybsataan waxaan idin leeyahay dhamaantiinba soo dhawaada gacmo furan waan bilaabeynaa insha Allah ta'ala please codsi waaye haddii aad igu cusub tahay subscribe inoo dheh haddii aad hore noola joogtane laagta iyo sharta iyo commentiga midnaba ha naga iloobin laagtana muhiim ayay noo tahay dhiirigelin ayay noo tahay videogeena ayaa sii soconayo marnaba ha naga baqiilin soo dhawaada dhamaantiin gacmo furan aad iyo aad ayaa idin wada jeclahay dhamaantiin welcome ma idin leeyahay meel walba adduunka dacaladiisa ka wada joogtaan waa anigoo ah Shamis ya abaayo waxay ku nooshahay wadanka Soomaaliya ayay ku nooshahay alxamdulillah waxay tiri abaayo wiil ayaan isjecleynay tiri wiil ayaan isjecleen in muddo ah ayay wax naga dhaxeeyeen tiri isla soconay tiri waxay dhahday dad waxaan ahay tiri maanta wiil saaxiibtinimada ku egmanihiin tiri waxaan noqonay tiri family dad guri wada lah hooy wada yeeshay waxay tiri familkaygu iga soo doontay waa aliisiye tiri guri ayaan wada degnay tiri qurux badan alxamdulillah farxad ayaan ku wada nooleynay tiri reereen ayaan ku wada nooleynay dhahday waxay dhahdaa abaayo wiilka aad iyo aad oo ii jeclaa ana sidoo kale sidaas iyo si la mid ah aad iyo aad aan u jeclaayay dhahday waxay tiri jecelkayga waa aan ku guuleystay tiri oo nolol qurux badan iyo mustaqbal qurux badan inta waan wada qaybsanay dhahday farxadna waa wada helnay tiri ilaahay wuxuu nagu soo deeqay tiri oo nasiiyay tiri ubad ilmihii koowaad aan dhalay tiri ilmihii labaad ayaan u dhalay dhahday waxay tiri family barabale maana qabsadee tiri marka hore waxaan la deganaayay tiri familkiisa walaalihiis ayaan isku dhacnaahay tiri mar walbaba iyo mar kasta waxay tiraahday in aad sabarto ayaa lagaaga baahan yahay abaayo waa aan sabraayay tiri madaxayga hoos ayaan geeyay dhahday wax walba oo leeyahay tiri wax walba oo leeyahay sameeyay dhahday wax walba oo leeyahay tiri dhag uma dhigo laana waxay tiri waxa la yidhaahayo waxa kamid ah tiri aniga waxay tiri horta hooyaday maba aqaanay tiri cid ay tahay iyo meel iga jirto iyo meel ku nooshahay maba aqaanay tiri Allah hadaayay tiri ilaahayna ha xafido ilaahayna ha ii daayo hooyada isoo korisay tiri oo maanta qof weyn iga dhigtay tiri i guurisay dhahday oo hooy maanta markii aan qof aan jeclahay oo la imiday tiri aan u keensaday igu raacday tiri ilaa heer waxbarasho ilaa dugsigeygii ilaa quraanka wax walba isoo bartay dhahday hooyaday waxay tiri mar dhow ayay iga geeriyootay tiri ilaahay ha u naxariisto waxay tiri wax mar walba waxa la yidhaahayay tiri naaya ilaa islaantaas mayba ku dhalin buu ku soo korsatay oo aad la nooleed oo magacaas aawadatid may ku dhalin cidaas ee cidaada aaway wiilkeenu wuxuu guursaday gabar wacal ah kala lay ma dhahay tiri wiilkeenu wuxuu guursaday gabar wacal ah anigana waxay ugu noqotay tiri xaqiiqdii waxay tiri utin ayay ugu noqotay tiri nabaray ugu noqotay tiri xanuun fara badan aan dareemay tiri culays fara badan ayaa dusha iga saaranay tiri culays fara badan aan qaadi karin tiri xagga maskaxda iga saaranay tiri mar walba waxaan isweydiiyaa tiri cid aan ahay tiri shakhsi ahaanteena isku weydiiyaa tiri cid aan ahay yaan ahay aniga hooyaday aaway aabihii dhalay aaway maamadan hooyadan isoo korisay
ilaa heer waxbarasho ilaa jaamacad ilaa quraankayga inaan dhameeyo oo xafido diinta rabbi aan meel aan soo saaray tiri qofkii intaasoo judud igu soo bixiye tiri intaasoo dadaal igu soo bixiye tiri garabkayga taagnaaye tiri ima mar walbaba garabkayga ka muuqatay tiri iyadii iyo ninkeedaba aabahay waxay tiri mar walbaba garabkayga ka muuqdeena tiri weligay cidla maana dareeminay tiri weligay umaana qaadanay tiri inaysan reerkan i dhalinay tiri nolosheeda niyadeeda ma soo gelinay tiri inaysan reerkan i dhalinay dhahday waxay tiri markii aan wax bartay tiri oo wax lay baray tiri oo aan qaan gaaray tiri hooyaday iyo aabahayba waa ii waceena tiri waxay dhaheen tiri waxan waa adduunyo waa aan dhiman karnaa waa aan dheeraan karnaa maanta gabar weyn aan noqotay 20 jir ah waad guursan doontaa hooyoy macaantooy aabow adigoo iska soo qaadin waxa aan ku dhaheeno qaladna aada u fahmin xumaana aada u fahmin ay dhaheen tiri hooyoy annaga adiga waa aan ku helnay adigoo yar jiro 3 bilood adigoo jiro 3 bilood ayaan ku helnay annaga ku soo korsanay curudeena noo ahayd ilmaha aan dhalnay ayaad ahayd jiirkayga ayaad ahayd naas ayaan ku siiyey ilmo yaraan haysta kula eg ya naaskaad la jaqday waa walaalaha waxaan dhahay tiri 3 bilood anoo jiro aad isoo hesheen meel wada ah ayaa lagu dhigay subax alisay anagoo shaqo u socono oo shaqo u kala heeno maqaaxi weyn aan noo furneed ee dhaheen hooyaday aabahay tiri ayaan maqaaxideena dhabarkeeda ooyinka maqalnay salaada subax markii laga soo baxay ahayd dhahday tiri ameeshaasan ka soo qaaday tiri wax yaraad ahayd 3 bilood aan kuugu qiyaasay ilaa 3 bilood ilmo jira ana haysta markaas ay dhahday tiri aan ku soo qaatay tiri mataano ayaan badhahay tiri labadan gabadheedana gabaray ahayd tiri adna gabar ahayd mataano waaye sidii anaas ku wada cabteenay tiri maanta ilmahayga kaama jecli ina adig ku jeclaha maahane ilmahayga adiga sidaan kaaga fikiro ilmahayga oo kama fikiray ay dhahday tiri si aad u dareemin hooyada iyo aabaha maantana waxaan kugu sheegayaa hooyo naftaan leesma siisan ay dhahday tiri meeshii noola soo joogan rabbi baa garanayo biritoole markaan dhinto ama adduunyadan ilaahay iga oofsado haddii aad qof kale afkiisa ka maqli lahayd anigan cugdad ii qaadi lahayd waxaan jeclaystay maanta maadaama aad noqotay gabar 20 jir ah in aan kuu sheego markaasaan dhahay tiri aniga waxaas maba aqaanaan dhahay tiri adiga hooyada ah adiga aabahay ah ana cid kalena ma aqaano waxa aad ka hadlaysaan maba aqaanaan dhahay tiri hooyaday aabahay labadoodu wasaasi ii wada qabsadeen tiri laabtay ugu qabteen tiri erayga aan ka dhawaajiyay tiri iyo waxa aan dhahayna waa ay ku farxeen tiri xaqiiqdii aad iyo aad ay ugu farxeen dhahday anna waxa tiri weligay niyadeeda maba soo gelinay tiri mana isdareensiinay tiri inay jiraan dhahday marka waxay tiri aniga ma aqaanay tiri hooyada ii dhashay oo runtii ii dhashay magaceedu saddexan tiri aabihi runtii ii dhalay magaciisa saddexan ma aqaanay tiri labadii qof oo isoo korsadeen tiri ayaa la qaybsaday tiri ayagaan aqaanay tiri ayagaan indhaha ku kala furtay tiri maanta marka culeyska i heesto iyo dhibaatada i heesatay dhahda waxay tahay wiilkii aan isguursanay tiri oo shalay shafki ii qaraacday tiri oo hooyaday ka balan qaaday tiri in maalin hataa dhibaato aan la kulmeenin tiri maanta waxay tiri tii wuu ku taagan yahay tiri laakiin horaa loo dhahay tiri biyo ka badan iyo dad ka badanba iyo dad ka badanba way ku qaadaan marka waxay tiri wiilkii caburun baa xagga laga saaray tiri wariyaa maanta laba unbay ku dhashay waa wacal family malaha reerkaas way soo korsadeen gabadha aan ka doonanay maanta cid maanta garabkeeda taagan malaha cid maanta kor taagan ma jirto cid ka furnaagta naa kale tooda guursanaysaa marka waxay tiri aniga in lay furay tiri horta umaba ka xumiye tiri oo xumaan ugu heesay tiri waxa aan ka fikirayay tiri labada caruur aan heestay tiri wiilkayga iyo gabadheeda yartaa ahay dhahday aan aad iyo aad uga fikirayay tiri marka waxay tiri asxaabay cidla cirsil ma leh aan taaganahay tiri meelaan u cirsadana ma aqaanay tiri
walaalahay kale tad hooyada iyo aabahay dhaleen tiri garabkaygu way taagan yihiin tiri maalina imay dareensiinin tiri keligay inaan ahay tiri oo hooyay aababa ee naga geeriyoodeen tiri ma aana dareemin tiri laakiin caloosh ibalbalayso waxay tahay tiri hurdada ii diiday tiri maskaxdeeda barashar aad u weyn saaran tiri xaqiiqtan tiri wax aan sameeyana ma aqaan tiri haddii lay furo waxay tiri waan hubaayay tiri in caruurta layga reebanayo dhahday maadaama waxay tiri ay leeyihiin tiri waa gabar wacal ah family ma lahan aaba ma lahan hooyo ma lahan ilmaha waad ka reebanaysaa waxay tiri hadal oo qarsoodi loo dhahayo ma ahane tiri hadal igala gambanayo ama la qarinayo ma ahane tiri gabadha dhalat waxay leedahay tiri walaalkay naag wacalowba qabaayo ma naag kaloo qabi horta waxaan leeyahay abaayo ani horta waxaan abaayo horta aan dhihi lahaa waa aan dhahay haddana waan ugu darayaa abaayo adduunyadan horta qof walba sabar ayuu meeshuu rabo ku gaaray dad waxaa jiro hooyo aaba dhaleen oo maantana hooyadaas iyo aabahaas aana garabka haysan hooyo iyo aabo macaan way jiraan hooyo iyo aabo hooyo caruurteeda inta lagu furay lagu dayacay hooyo keligeed soo korsatay hooyo keligeed u dhimatay aana aabo maalina naxariistiisa aana arkin way joogaan aabo danqasho iyo naxariis in la wacdo maahane aabo aniga gabadhaadaan ahaye aabo aniga wiilkaagaan ahaye waxaasaa u baahanahaye isi in la dhaha maahane xataa aana soo raadsan way jiraan xataa booskii aabanimo eese dareemin maxay tahay xataa aaba dareemin inay wax u qabtaan aabow anaa ku dhalay wax ma barataa heerkaaga halkuu marayaa xataa aan la soconaa jiraan abaayo waxaan ku dhihi lahaa oolaadaada u sabar ninka haddii asiga oo suxumeen familkiisa keliya ee xumaatay ninka la hadal waxaad ku tirahdaa walaal macaan aniga haddii aad ifuraysa xataa ilmahayga ha iga reebanin intaa keliya asxaan iigu samey hooyaan ahay ayagaa maanta haystaa wax walba aan ahay aa sheegteen waa sax waan ku ahay laakiin aniga oolaadan anaa dhalay maanta anaa hooyadood adaa aabahood haddaa xataa hal maalin jecelkaaga dhab oo kaa ahaa caruurteeda ana iidaa inuu kaa ogolaadana way dhacdaa abaayoy waxba ha isciilkaambinin waxba ha xanaaqin haddii aad broshar isa saarto maskaxdan waa wax yar waaye culeys badanna ma qaadi karto culeys badan ma qaadi karto markaa ku leeyahay waxay tahay culeys badan ma qaadi karto fikirka badan dhibaatuu leeyahay haddii maskaxdaada ee isrogto aa kasii daran ama aada waalato ama dhiikar kuugu dhaco ama sokor kuugu soo boodo ama barlees aa noqoto fikirka badan dhibaatadeedu leeyahay problemkiisuna waa wataa waxaan ku dhihi lahay abaayo rabbi tala saaro ilaahay bari salaatuleel duko ilaahay isku xir rabbi isku xir qofka markuu rabbi isku xiro oo rabbi baryo wax walba aa rabbi ka barido rabbigii weynaa subxaana watacaala na abuuray na qalqay adduunkan nagu irsaaqaayo aa joogo waxaa rabbi ka baridane xaqiiqdii ma weynaysid waad helaysaa insha allahu tacaala ilaaha kula jiro rabbiya micigaaga ah wax kaa halaabayo ma lahan bini aadan xun oo nyaaw ah waxba kaama qaadayo abaayo waxaan ku dhihi lahaa niyadaada deji barasharka aa isa saarayso iska deji culeys badan waxba ma taraayo waxaan ku dhihi lahaa fikirka badan barbalemka badan adiga ayuu dhibaato ku geysanayaa ha fikirin hana dhibaatoonin waxaan ku dhihi lahaa ha fikirin hana dhibaatoonin abaayo macaanto ani taasaan kugula talinayaa xaqiiqdii macaan badanay waxaan ku leeyahay fikirka badan iska daa barbalemka badan iska daa asxaabteyda dad aad iyo aad u wanaagsanaatiin xaqiiqatan abaayo talo tusaalo wax walba qof walba ra'yigiisa way u baahan tahay abaayo maanta qof walba ra'yigiisa u baahan tahay kuma dheheyso xoole isi kuma dheheyso wax ii qabo wixii kaaga baahan tahay waa duco iyo fikradii aad ku kordhin lahayd intaasay kaaga baahan tahay abaayo waxay taagan tahay fikradihiina u baahanahay ducadiina u baahanahay maanta qof dhibaateysana ahay xoolo kaama rabo hanti kaama rabo nolol kale kaama rabo ducaan kaaga baahanahay iyo fikrad inaa igu soo kordhiso waxay tiri waa cabursanahay
qof culays weyn dushi ka saaran yaha ahayay tiri waxaa macquula xataa aabihii wuu fiican yahay ma xuma aabihii oo aabihii dhibaato kama tirsanayso familkiisii ayaa dhibaato ku hayaan familkii ayaa problem pressure saaraya wiilkii asigana waxaan uga rajeynayaa insha allahu tacaala walaalkay wuu arki doonaa videogayga wuuna daawan doonaa insha allah wax walbo ee xaaskaaga tahay waa aad ku jeclaatay shala toole waxba may kaa qarinin maantana familkaaga adiga ayaa ka celi karo adiga ayaa gabadha brosharka ka dejin karo adiga ayaa dejin kara xaaskaaga haddii waalidka hadalkiisa xataa aad qaadanayso waxaan rajeynayaa aaba fiican inaad noqoto caruurteeda iyo iyadeeda iyo gabadha aad qabto maanta haddii aad furto xataa ee go-aanka aad noqoto ama calafkiina oo soo dhammaado in aad iyada iyo ilmaheeda guri u kirayso aad meel dejiso aadna ku biilato hooyo iyo ilmaheeda marnaba ha kala dheereenin waxaan waa adduunyane tagta timaadaa ka badan waxay tahay ma lahan adduunyo taan joogna maanta aad aragtaan waay adduunyo waxay tahay ma lahan wax laga qaadayo ma lahan waalidka waxaan leeyahay famil dhisan burburinaayo guri dhisan baabi'inaayo biliis codsiya iga tahay ha ka baabi'ininaha gabadhaas gurigeeda hooyo waa tii wiilkeeda dhisi lahayd ma aha tii gurigii wiilkeeda burburin lahayd ama baabi'in lahayd ilmahan haddii gabadhan caruurta idiin dhashay haddii iyada hooyi aabbo midnaba aysa haysan adiga ilmahaada aabi leeyihiin hooyo leeyihiin gabadha meesha hooyo oga noqon lahayd aad wanaajin lahayd aad niyadda u dhisi lahayd aad garab istaagi lahayd markaa barashar aad saarto hooyo ma qurux badan tahay gabar adigaba waa dhasho hooyo macan gabadhaada in maanta waa lagaa guursanaya laba jeeraba haddaan hadda la qabin waa lagaa guursanaya guriga kuuma joogayso marka ma jeclaan lahayd gabadhaas reerka kaa guursaday in wiilka walaashii hooyadii habreertii hebelo balaa balaa inay hadal iyo dacuufnimo iyo waxaan jirin ay kula hadlaan cid u dul qaadan karta ma lahan waxaana dhihi lahaa gabadha wanaag kusoo dhaweeya asxaabteyda dhammaantiin waxaa idin leeyahay abaayo u duceeya hadal fiican oo maskaxda u dejinayana usoo qora dhammaantiin waxaan kaaga sii tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.